بسم الله الرحمن الرحيم مدن رئيس الوزراء xubnaha golaha wasiirada ee aan guddiga ku wada jiro la taliyaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo saxaafadda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed halka naga daawanaysa ciid mubaarak aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaare waqtigaaga sida ay wasiirada saaxiibadayada sheegeen shaqadii naloo idmaday ee ahayd sida aan uga shaqeyn lahayn dib u heshiisiinta doorashada gobolka Gado iyo guud ahaan Jubbaland waxaan rabnaa maanta halkan inaan kugula wadaagno macluumaadkii ama reportkii aanu ka soo qaadnay shaqadii ama aanu ka diyaarinay shaqadii aanu soo qabanay iyo sida uu wasiir Caadlaba sheegay sida ay u dhacday shaqadii aanu soo qabanay ayadoo sida aan xusnayba reportka ama macluumaadka aanu kula wadaagi doono faahfaahintiisa haddana waxaan rabnaa halkan inaanu la wadaagno ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo madaxdoodaba tala bixinta ka soo baxday shaqadii aanu soo qabanay bismillahir rahmaanir rahiim tala soo jeedin guddiga dib u heshiisiinta gobolka Gado kadib u kuurgelis xaaladda gobolka gaar ahaan magaalada Garbaharey iyo Kismaayo oo aanu markii dambe ku dambeynay iyo wada tashiyo ballaaran oo aanu la sameynay qaybaha bulshada mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiintaba waxaynu ku tala bixinaynaa qodobada soo socda in si dhaqso ah loo fuliyo in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu soo saaro wareegto uu ku amrayo dhammaan cidii ay qusayso gaar ahaan laanta socdaalka hay'adda duulista hawada iyo hay'adda nabad sugidda qaranka ee ka howlgala garoomada diyaaradaha ee dalka gaar ahaan kuwa ka howlgala garoonka Aadan Cadde iyo kan Kismaayo in aan muwaadin aan maxkamad dambi ku soo oogin aan sabab aragti siyaasadeed darteed loo xanibi karin socdaalkiisa guud ahaan dalka gaar ahaanna in la fasaxo diyaaradaha iyo muwaadiniinta u kala safraya Muqdisho Garbaharey Kismaayo Garbaharey iyo Garbaharey Kismaayo in isla wareegtadaas uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ku soo saaro in si waafaqsan heshiiskii 27 May 2021 aysan ciidamada kala duwan wax faragelin ah ku sameyn karin siyaasadda iyo amniga doorashada dalka marka laga reebo hay'adaha amniga ee loo xil saaray fulinta qorshaha amniga doorashada Garbaharey waxa loo marayaa si waafaqsan soo jeedinta Baydhabo iyo heshiiskii 27 May 2021 ee golaha wada tashiga qaranka in guddiga doorashada Jubbaland seat uu soo gudbiyo jadwalka goorta ay tagayaan Garbaharey iyo waqtiga la bilaabayo doorashada kuraasta 16 ah waxaan kaloo soo jeedinaynaa in la tixgeliyo codsigii bulshada Garbaharey ee ahaa in lagu bilaabo doorashada magaalada Garbaharey in ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ee ku sugan aaga Garbaharey ay xoojiyaan amniga guud ee degmada si looga ilaaliyo in argagixisadu soo fargeliso habsami u socodka qabsoomidda doorashada amniga doorashada Garbaharey in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo golaha wada tashiga qaranka ay si joogto ah uga wada tashadaan xaaladda amni iyo siyaasadeed ee qabsoomidda doorashada gobolka si loo hubiyo habsami u socodka doorashada iyo hirgelinta dhammaan heshiisyadii fududeynaya xasiloonida iyo nabadda doorashada kuraasta Garbaharey ugu dambeyntii waxaan soo jeedinaynaa in magaalada Garbaharey laga hirgeliyo mashaariic horumarineed oo degdeg ah si ay qayb uga qaadato mashaariicdaasi soo kabashada kalsoonida bulshada ee dhanka dawladnimada mashaariicda horutaminta leh waxaa ka mid ah in la hagaajiyo biyaha magaalada Garbaharey in la dhiso garoonka kubadda cagta ee Garbaharey in la dhiso suuq dadka ka dhaxeeya in la hagaajiyo jidadka magaalada dhexmara in meel ku habboon laga hirgeliyo garoonka diyaaradaha dhammaad mudan ra'iisul wasaare intaas waxa weeye talooyinka aanu ku talinayno u baahan in si dhaqso ah loo hirgeliyo haddii la ahaydmo si ay dhamaystir ugu noqoto shaqadii quruxda badnayd aanu soo qabanay waxaan kaloo rabaa mudan ra'iisul wasaare inaan halkan la wadaago ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in safarkayagaas aanu ku tagnay magaalada Garbaharey iyo Kismaayo ay u guul ahaa oo runtii dadkuna ay si diyaarsan oo wanaagsan oo Soomaalinimo leh ay u soo dhaweeyeen arintan u soconay oo ahayd sidii si habsami leh loo hirgelin lahaa doorashada kuraasta taala magaalada Garbaharey
iyo in gobolka oo dhan laga helo jawi nabdeed oo doorashadu ku dhacdo. bismillaah alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. mudane ra-iisul wasaare, mudanayaal, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib, mudan ra-iisul wasaare, waxaa farxad noo ah maanta inaan halkan kugula kulanno annagoo ah guddigii aada magacowday oo aada u xil saaratay inay ka soo shaqeeyaan arrimaha gedo, gaar ahaan Garbaharey iyo qaabkii doorashadu uga dhici lahayd iyo xaaladaheeda. aada iyo aadaan kaaga mahad celinaynaa hawsha aada noo idmatay oo aada maaragtay noo xil saartay oo aada ku mahadsan tahay. intaas kadib haddaan usoo laabto arrintii socodkeena iyo shaqada, waxaan rabaa inaan ku bilaabo mahadcelin aan u mahad celinayo dadka ku nool gobolka gedo, gaar ahaan magaalada Garbaharey. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii aan ugu tagnay magaalada Kismaayo oo iyagu horeysa madaxda meesha joogtay oo maaragtay madaxweyne ku-xigeenka uu joogay iyo golihii wasiirada iyo intii aan aragnay dhammaantood iyo bulshada qeybaheeda kala duwan, salaadiinta iyo intii aan aragnay oo dhanba, oo xaqiiqatan si aada iyo aada u qiimo badan, dadnimo leh, sharaf leh, noo soo dhoweeyey, noolana shaqeeyey, wixii aan wadnayna naga aqbalay iyo barnaamijka aan ula tagna. barnaamijkaasoo ujeedadiisu ay ahayd oo la wada ogyahay siday uga qabsoomi laheeday doorashada loo ballansan yahay waqti dhow magaalada Garbaharey oo ka mid aheeday goobihii loo asteeyey in ay ka dhacaan doorashooyinku. markii aan halkaas aan tagnay, waxaan joognay muddo 4 maalmood ah. waxaan la kulannay bulshada qeybaheeda kala duwan, si ugaaska iyo siyaasiyiinta iyo cid kastaba. waxaan marka rabnaa galabta inaan halkan kuugu soo gudbino gabagabadii markii aan hawsha soo gabagabaynay, annagoo markaan ka soo baxnay Garbahareyna Kismaayo soo marnay oo sidaasoo kaleento uga soo aruurinay xogihii sida adiga dib u heshiisiin ay uga dhici laheeday guud ahaan Jubbaland ama gobolka Gedo, iyo sida hadda doorashada ay u dhici lahayd labadaba. wixii aan kala soo kulannay ayaan waxaan rabnaa galabta halkan inaan kuugu soo gudbino. horta waxaan kuugu bishaaraynaynaa inaan kala soo kulannay guul, in arrimihii annaga aan ula tagnay dhammaantoodba nalan ka aqbalay, in la dhihi karo in teera badan hawshii waa soo gabagabowday oo ay ka dhiman tahay in yar oo adiga iyo madaxweyne Axmed Madoobe in aada maaragtay aada dhammaystirtiin u baahan. aada iyo aadaan ugu faraxsannahay in xaaladii ay noo soo dhammaatay, galabtana annagoo guul ku fadhino oo riboodkii aan ka soo saarnay galabta aan rabno halkan inaan kugula wareejino mudan ra-iisul wasaare. bismillaahi raxmaan raxiim. mudane ra-iisul wasaare iyo tiimka guddiga aan ku wada jirnay, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bacdi salaam, mudane ra-iisul wasaare, sida warbixinta uu ku sheegay wasiirka, muddadii aan ku sugnayn magaalooyinka Garbaharey iyo Kismaayo si aan u gudano hawshii naloo igmaday. warbixintii aan soo aruurinay waxaan ku soo koobnay riboor aan ku soo saarnay. riboorkaas oo ka kooban horudhac, ujeedada ama mandatka guddiga, shaqada aan soo qabanay iyo hanaanka u marnay, xaaladda ka jirta gobolka Gedo, gaar ahaan Garbaharey iyo magaalada Kismaayo. waxaan ku soo ganaanudnay recommendation ama tala soo jeedin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة ما أنت مالين تلغات عيد الأضحى، عيد عرفة، وحمرك كواد وهم بليان يا شعب الصومالي ملك السوء الجوكتين، عيد وناكسن إلهي إنه نوجدجو مدبر واقله قول له هرمر له دور الشمال نسيع الدالة ده وهفنان له ونوجد مايو سنة كان سنة كي سنة أنه عافمات قبنا إلهنا كل نسيو مركل لبعض وحن رباهل كان إنا مهدو جسوا جديو مهدا سؤاد يأدو بلارن قدقي دبو هشيسينتا أرماها جدو أو وجوه الرئيو وزير عادلة وكحيجو وزير نونو وكحيجو وزير دبنعات وكسيحيجو وزير آدم قريولي إيو لطليا حفيزكا رئيس الوزراء advisor jaamac. runtii shaqada aan idin idmaday maanta farxad ayay
na gelinaysaa aniga iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed sababtoo ah si wanaagsan oo hufan oo wadaninimo ah oo walaalnimo ah oo saaxiibnimo ah oo ehelnimo ayaad u soo dhameyseen howlahaas oo dhan waxa ka muuqato warbixinadiina inay hawshii sidii Allah subhanahu wa ta'ala aan ka baryaynay ay noogu soo gabagabowdo runtii shacabka Soomaaliyeed waxaan halkan uga xaqiijinayaa in qodobkan ahaa arrimaha gado oo kamid ahaa qodobadii caqabadaha waaweyn ku ahaa heshiiskii 17 September maantay waxaan ummadda Soomaaliyeed horteeda ka qiranayaa in guddigan ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo wax la qabto waxa ugu wanaagsan qofkii ka shaqeeyo islaax bayna naas ay soo gabagabeeyeen oo maanta ay harsan tahay kaliya in aniga iyo madaxweyne Axmed Islaan Axmed Madoobe uu wareegto ku soo saaro maamulka degmada Garbaharey oo hadda warqadihiisa mar dhow liigu wareejin doono anigana aan madaxweynaha u gudbin doono inta kaliya ayaa u harsan inta ay soo jeediyeen guddigan oo ah tala bixintoodii ku aadineed arrimaha socdaalka amniga mashaariicda haddaan hal u kor istaago waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa har iyo habeen hortooda aan ka leeyahay socdaalka waa muhiim muwaadinka xaq ayuu u leeyahay inuu meel kasto ka safro meel kastana uu u safro dalka gudihiisa muwaadinka Soomaaliyeed ee musharaxa ah wuxuu xaq u leeyahay in la dhowro xuquuqdiisa muwaadinimo in la dhowro fikirkiisa in uu xaq u leeyahay magaaladu rabo inuu ka safro magaalo kalena uu tago waxaan farayaa hay'adaha socdaalka waxaan farayaa hay'adaha amniga booliiska iyo NISA warar badan baa soo gaaray dhowr jeer oo ah in dad la celiyay meelo kala duwan laga celiyay uma dulqaadan dooni qoftii ku soo baxdo falkaasna talaabo sharci ayaan ka qaadayaa qofka muwaadinka ah lagama celin karo airport haddii soo gaartana shacabka Soomaaliyeed anoo kaashanayo talaabo waafaqsan arintaas ayaan ka qaadayaa diyaaradaha socdaalka diyaaradna lagama celin karo ka baxayso Muqdisho Garbaharey tagayso diyaarad lagama celin karo Garbaharey ka baxayso Kismaayo tagayso iyo mid Kismaayo ka tagayso Garbaharey tagayso iyo mid Kismaayo ka soo baxayso xamar imaanayso dhammaan waa xaq dastuuri ah cid is hortaagi kartan walaan hay'adda duulimaadka waxaan u sheegayaa oo farayaa ciddii la timaado ama idin la hor timaado arrimo ku saabsan arrimahaas qalqal gelinayo si toos ah iigu sheega si talaabo cad aan uga qaado waxaan rabaa kale halkan inaan idin kaga sheego si howlahan guddiga dib u heshiisiinta arrimaha gido ay noo soo dhameystireen aan dabagal ugu sameeyno waxaan ka codsanayaa guddiga in ay kor joogteeyaan inay dabagal ku sameeyaan waxyaabihii ay noo soo qabteen anigana waxaan kala shaqeynayaa hawshaas sida hufan oo walaaltinimada leh oo saaxiibtinimada leh oo ehelnimada leh sidii ugu gudan lahaayeen oo ugu dhaqsiyaha badan amniga Garbaharey xaqiiqdii aniga waa ka horeeyay tiimka dib u heshiisiinta arrimaha gado ee wasiirada afarta dowlad goboleed ka socda waa soo arkay gado waa meel amnigeeda la isku haleyn karo waa meel ay joogaan dad wanaagsan oo saliim ah diyaarna u ah in doorasho lagu qabto meeshooda sidaa darteed waxaan kala shaqeyn doonaa dowlad goboleedka Jubbaland oo madaxweynaha ka yahay Axmed Islaan Axmed Madoobe sidii amnigaas xilliga doorashada gacan weyn looga geysan lahaa haddii aan lahayd ciidamada amniga qaranka haddii aan lahayd ciidamada Amisom ee booliiska ah kulli way naga go'an tahay arintaasna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u fulinaynaa maantay waxaan halkan hortiina ka cadeynayaa shacabka Soomaaliyeed oo arintii gado waa noo soo gabagabowday alxamdulillah waxaan sugnaa waa magacaabidii iyo dhameystirkii iyo dekreetadii aniga iyo walaalkay Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland oo aan saxiixno waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo odayaasha dhaqanka wasiirada xildhibaanada senatorada dhammaan ka soo jeedo Jubbaland waa mahadsantihiin waa idin kaga mahad celinayaa sida wanaagsan oo wadaninimada ah oo aad noola shaqayseen aniga iyo guddiga dib u heshiisiinta arrimaha gado insha Allah waa guuleysanaynaa waa najaxaynaa doorashadana waa horteynay taala insha Allah si wada jir ayaan shacabka Soomaaliyeedna uga codsanayaa inaan si wada jir wax uga qabanno mashaariicda
ayay walaalihii ka dhawaajiyeen ku saabsan gedo guud ahaan iyo garbaharey ka ra-iisul wasaare ahaan xafiiskayga oo ah hay-adda fulinta ee dalka ugu sarreyso waxaan diyaar u ahay inaan wasiiradeyda isbuucan oo sabtiga bilaabanayo aan faro inay tagaan waxna u qabtaan hadday ahaan leed xaaladaha nolosha ee bini'aadanimada iyo xaaladaha horumarinta sida ay ka dhawaajiyeen warbixintiina ay ku lifaaqeen guddiga dib u heshiisiinta waana idinka aqbalay waadna mahadsantihiin waana idin soo dhaweynayaa insha allah shacabka soomaaliyeed maanta waxaa noo xirmay jabtarkii gedo issue waxaan rabaa oo kale halkan inaan uga faa'iidaysto oo aan shacabka soomaaliyeed warbixin ka siiyo arrimaha somalilan meel fiican ayay ii marayaan wada tashiyo ayaan wadaa waa ku guda jiraa madasha wada tashiga qaranka ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe aniga ayay mas-uuliyaddeeda isaartay sida ku cad September 17 February iyo 27 May anigoo la tashanayo gudoomiyaha Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeen Mahdi wada hadal ayaa noo socdo qulubtiina khayr u sheega arinta saddexaad oo rabaa maanta inaan halkan kaga hadlo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa ducadiina waana soo gaartay insha Allah saan hore idinku sheegay maanta waan ku celinayaa xildhibaan uma socdi senator uma socdi madaxweynenimo uma socdi sababtoo waa dartiin ayaan u tanaasulay haddaanan u tanaasulin doorasho xalaal oo cadaalad ah ma qabanayo saa darteed waxaan rabaa inaan meel uga soo wada horjeysano qof kasta oo isku dayo inay caqabad ku noqoto ama shaki ay geliso howlaha wanaagsan ee shacabka Soomaaliyeed aan u wadno waxaan leeyahay siyaasiyiinta kubadda waxay jirtaa dowlad goboleedyadii magaalada inaad noo faaruqisaan ayaan rajeynayaa gobolada aadaan doorashadii waa bilaabatay haddii ahaan lahayd aqalka hoose haddii ahaan lahayd aqalka sare iyo tii madaxweynaha October aan arki doono haddii Ilaahay caafimaad iyo cimri dheerna siiyo marka waxaan idin leeyahay gobolada hala aado hala shaqo tago yaa la isku mashquulin aad ayaad mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh